maanta waxaan doonayaa in aan la wadaago ereyga saaxiib. qofki inuu saaxiib wanaagsan yeeshana way wanaagsan tahay. waa tii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu nooga digayay oo uu lahaa qofku wuxuu la dhaqan iyo la din yahay walaalkiis, soo dad qof waliba qofka uu saaxiibka la noqonayo ha u fiirsado. dad badan ay runtii saaxiibadooda u horseedeen nolol horumar leh. dad badan ayay sidoo kale saaxiibadooda u horseedeen nolol meel xun ku dambaysa oo bilaa mustaqbal ah. dad badanna sidoo kale hadda waxay ku wareersan yihiin saaxiibadooda halkay u horseedi doonaan nolol fiican ama nolol xun, whatever macnaha meesha ay u horseedi lahaayeen ayay ku wareersan yihiin. saaxiib marka laga hadlayana runtii waxa oo xasuus mudan oo in la isxasuusiyo mudan. xikmaddii carbeed oo lahayd man jalasa qawman 40 yawman saara mithlahum. qofka qof la jooga 40 cisho wuxuu noqdaa sidiisa oo kaleeto ama dabeecadiisa ayuu ka soo baxaa. qofka aad la joogto haddii uu runtii dabeecadiisa ay xun yihiin aseemtiin adigana 40 cisho ka bacdi inaad dabeecadiisa aad la imaan shaki kuma jiro. macnaha xumaantii samaanta marka aan leenahay inta badan dadka waxa soo jiita xumaanta ayaa dadka soo jiidata. haddii uu saaxiibkaaga wanaagsan yahay iyo haddii aad saaxiib xun leedahay ama haddii aad leedahay saaxiib fiican, waxay u badan tahay inuu ku soo jiito saaxiibka xun. waayo mar waliba xumaanta ayaa soo degdegta maadaama oo shaydaanku uu ku lifaaqan yahay. qof ayaa waxaad arkaysaa soomaalidu waxay tiraahdaa qofka aad kobta ka tolomaysid kobihiisa ayaa la fiiriyaa. saaxiibkaaga wax uu sameeyey adiga haddii aad weydiisid waad tirahdid niyo waxaan inaan daayo ayaan rabaa, maybe waxa macquul wuxuu kugu jawaabayaa maya taas macquul ma aha, ma samayn kartid. tusaale ahaan hadduu balwad leeyahay waad tirahda balwaddan inaan daayo ayaan rabaa, wuxuu ku leeyahay balwaddaasayta maya ma daan kartid, waxaan lama daan kara waa usi marmarsiyo badan ayuu daba dhigayaa. in aan la daan karinna waa uu kuu sheegayaa. teeda labaad, qof marka aad wax weydiisad wuxuu kugu jawaabayaa maya waxaasayta ma samayn kartid. sababta uu kugu jawaabaya waxay tahay su-aasha marka aad weydiisid iskama soo qaadayo in aad adiga samayn kartid iyo in kaleeto, balse wuxuu isweydiinayaa nafsadiisa. shaygan la weydiiyey aniga ma samayn karaa? haa maya. maskaxdiisa waxay ugu jawaabi karaa maya waxaas ma samayn kartid. adigana wuxuu ku siinayaa isla jawaabtii maskaxdiisa ay siisa ayuu ku siinayaa, wuxuu ku leeyahay maya waxaas ma samayn kartid. laakiin jawaabta aad weydiisay ma aha mid uu asaga isweydiiyey oo uu yidhi su-aashan amaba ereyganaysa saaxiibkaaga ma samayn karaa isma dhihin, balse wuxuu is yidhi aniga ma samayn karaa. naftiisa ayuu weydiinaya, mar ahaantaasayta cod ahaan uma muujinaya, codkaas asaga kuma maqashiinaya, balse gudihiisa ayuu iska weydiinaya. wuxuu leeyahay aniga waxaanayta ma samayn karaa. naftiisa ayaa u sheegaysa maya waxaas ma samayn kartid. adigana wuxuu ku sheegayaa shaygaas inaadan samayn karin. mar waliba oo qofka uu ku yidhaahda ma samayn kartid shaygaasaytana waxaa jira dareen ee maskaxda u tabinaysa ereygaasayta, maskaxda oo ku aaminsiinaysa wixii inaadan samayn karin oo aad markii aad gadaal ooga noqoto ayuu ku tusaysaa. waana sababta keentay dad badan oo nolosha horumar ka gaari lahaa adduunya aakharaba, dad badan dadkii ka agdhowaa in ay macnaha saamaynta ay ku keeneen darteed ee meel u gaari waayeen. sidaad qofka aad la tashanaysid iska fiiri qofka uu yahay. saaxiibka u fiirsa saaxiibkaagana sidoo kaleeto. saaxiibkaaga nolol fiicanna wuu kugu hagi karaa, nolol xunna sidoo kaleeto wuu ku horseedi karaa. mustaqbal fiicanna wuu ku horseedi karaa, mustaqbal xunna wuu ku horseedi karaa. soomaalida waxay tiraahdaa saaxiibkaaga haddii uu lubaan gadaayo adigana waa kaa soo oreysaa. maalin ayaa waxaa la weydiiyey nin professor muslim ah oo waxaa lagu yidhi saaxiibka sidiisaba waa maxay oo maxaad ku turjumi lahayd ayaa lagu yidhi. professorkaasayta alla yarxam wuxuu ku jawaabay aniga saaxiibka waxaan u arkaa ayuu yidhi qof si uu noloshaada u dhiso tiisa u burburinaya. tan macnaheedu waxa weeyaa mar waliba inuu macnaha saaxiibka noloshiisa uu taada ka hormariyo, mar waliba danihiisa uu danahaaga ka hormariyo, wanaaggaaga uu ka fikiro. xumaan marka aad ku dhacdaan mar waliba kuu sheego oo ku yidhaahdo waddadanayta aan ku soconno way xun tahay. khalad marka uu kaa dareemo khaladkaasayta kuu sheego oo ku yidhaahda khaladkaasayta waa ku socotaa ee khaladkaasayta ka noqo. waa ka mid waliba mar waliba kugu taageera hankaaga iyo himiladaada iyo halka aad higsanaysid.
sida aad tahay kugu aqbala, dabeecadahaada kugu aqbala, dhaqamadaada kugu aqbala, wax weliba aad tahay kugu aqbala. balse marka aad dhaqan xun la imaado amaba ficilo xun uu kaa yimaado macnaha uu kugu arko aanan kaa aamusin ee ku xasuusiya ficiladaas inay yihiin ficilo xun. haddaba saaxiibka aanu ku xasuusinaynin ficilada aad samaynaysid waxa ay yihiin inay xun yihiin iyo in kale, kaa saaxiibtinimadiisa maxay ku tooran tahay? waxbana kuma tooro. fadaad dhallinyarada 3 qaybood weeyaan. qaar saaxiibadooda ayaa runtii noloshooda siijiyey oo meel xun ku dambaysiiyey. qaar saaxiibadooda ayaa sabab u noqday in ay noloshooda maanta heerka ay taagan tahay ay gaaraan sabab u noqday. qaarna sidoo kale waxay ku wareersan yihiin saaxiibadooda in ay yihiin labadaa qaybood kii ay noqon lahaayeen ayay ku wareersan yihiin. haddaba adiga kuweed ka mid tahay qaybta koowaad, qaybta labaad iyo qaybta saddexaad.